wafdi ballaaran uu horkacayo madaxweynaha maamul goboleedka Khaatumo mudane Axmed Cilmi Cismaan isla markaasna ay weheliyaan golaha madaxtooyada oo kamid ahaa madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac iyo waliba golaha wasiirada maamul goboleedka Khaatumo ayaa maanta galinkii hore kormeer ku tagay deegaanka Higlada oo hiraadii 40 kiiloomitir dhanka bari ka xigta magaalada Laascaanood. wafdidan ayaa waxa ay soo dhaweyn ballaaran kala kulmeen shacabka ku dhaqan deegaankaasi iyadoo markaasna ay kulamo la qaateen waxgaradka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku sugan deegaanka Higlada oo markaasi magaalada Laascaanood 30 kiiloomitir dhanka bari ka xigta. wafdidan kormeerkooda ayaa waxa uu qayb ka yahay kormeero kala gadisan oo muddooyinkii dambe madaxda maamulka Khaatumo ay ku mareysay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sool oo ay ka mid tahay degmada Boocame, Tukaraq iyo waliba deegaano kale oo hoos yimaada labadaasi degmo. wafdidan oo markaasi kormeerkooda sii wata ayaa waxa ay dib ugu soo laabteen magaalada Tukaraq oo markaasi ay dhawaanahanba ku sugnaayeen. sidoo kalena waxa wafdidan la filayaa inay kormeerkooda sii wataan muddooyinka soo socda iyadoo kormeerkana looga gol leeyahay la kulanada iyo waliba la tashiyada madaxda Khaatumo ay la sameynayso waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee deegaanada Khaatumo ee gobolka Sool. wafdidan ayaa waxa ay ka soo ambabaxeen caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Khaatumo ee Taleex iyadoo markaasna ay kormeero kala gadisan ku mareen deegaanadii aynu soo sheegnay. isku soo wada duubo wafdidan kormeerkooda ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay dhammaanba shacabka reer Khaatumo iyadoo la filayo inay u sii gudbi doonaan deegaano kale oo hor leh oo markaasi ka tirsan isla gobolka Sool.